munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta kala socotay wasaaradda caafimaadka Puntland qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka oo ka socday mashruucan sarkaal ka socday hay'adda cuntada adduunka WFP mas'uuliyiinta NGO-ga maxalliga ee hado iyo marti sharafaad u tiro badan ayaa ahay mid lagu soo gabagabeynayay mashruuca quudinta iyo nafaqeynta taasoo ay fulinaysay NGO-ga maxalliga ee hado oo ay gacan ka siinaysay hay'adda cuntada adduunka ee WFP ugu horeyn waxaa munaasabada ka warbixiyay gudoomiyaha NGO-ga maxalliga ee hado Cabdiqani Daahir Umar ولكن شتان ما بيننا فأنتم تعيشون بين أهلكم وأصدقائكم بأمان وسلام وهدوء وأنا هنا أصارع هنا في الأقصى والأقصى يئن وعي ويستمر العنين وفي كل صباح ومساء أردد وجه الرواد مشروعا باللولي بشي أفراد لولي مصدح الكونكا وكونا دمالي بشي اللبات مشروعا مركز قوضنتا ممكن حلق بنطلان كبلابني وحيها حلق ديان كبنطلان يتباتوين كبنطلان أوه الرئيسي إن مخصوصاتي بدأ بالنار صدري بالفعال للحقير أوارد يقول جيران وممكن قولي يتبال نصمد قولي يكبنطلان يتباتوين كأيضا فلا للأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير كلما الصبح مشروعا سيئة قبل الله ودقوني هذا الشغلي بشيء سيئة كل كستة مشروعا وحكفة يسجل ويراد أفضل وقفة ونفضل رأينا ويسوي جران عبور يماركتي ويون وكل يوم بيشتغل تدخل برنامج تدخل قلاء البرنامج تارجت ليسا أما مهمة أما تقدر يساعد سعيد محمد ورامي شدوها وزارة عافيمادka gobolka bari oo isna madasha ka hadlayay NGO-ga maxalliga ee hado ku tilmaamay mid ku dayasho mudan sida wanaagsan ee ugu heelan حتى أمي لم تناغي لها قبل الفطام ففطامي كان صوتا للمدافع أو زعير ففطامي كان صوتا للمدافع أو زعير وساردها لا شقيا برامج كان دكتور كله iyo hay'adaha kala ama garabista waxaan oran karnaa waxay tusaale u tahay dhammaan ururada Puntland ama gaar ahaan لم يكن يوما سلام لا ولا عشت بحضنه وأحاسيسي سعير لا ولا عشت gudoomiyaha degmada isku shuban oo kamid ah degmooyinka laga fulinayay mashruucan ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahaa mid waxtar weyn u leh bulshada ku dhaqan degmadiisa وأنا طفل صغير والدواء بالنار صدري بانفعال للحقير ليالي الوصف لم نذق فيها يعطوك يركع عيدنا دام هذا ترسك أو غاضية ويجوا دجان كاس بريقاس الفوق sarkaal ka socday hay'adda cuntada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WFP oo isna madasha ka hadlay ayaa uga mahad celiyay NGO-ga maxalliga ee hado sida wanaagsan ee uu fuliyay mashruucan mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb galay madasha ayaa ku tilmaamay mashruucan mid faa'iido badan u lahaa bulshada ugana mahad celiyay NGO-ga maxalliga ee hado sida wanaagsan ee uu fuliyay mashruucani Ibrahim Maxamuud Yusuf Puntland TV Boosaaso